madaxweynihii hore ee koonfur galbeed mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa iska casilay xilka kadib markii ay soo fod saareen cadaadis uga yimi bulshada koonfur galbeed iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale beesha caalamka. Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa maanta oo bisha ay tahay 7 November ku dhawaaqay in iska casilay xilkaasi. bulshada ka soo jeeda koonfur galbeed ayaa sheegay in uu 7 sano oo meesha uu fadhiyay Shariif Xasan uusan bulshada koonfur galbeed wax uu ku soo kordhiyay aysan jirin haddii noqon lahayd amniga, dhaqaalaha iyo isku socodka gobolada koonfur galbeed. sidoo kale waxa xilkii afhayeenimo ee iskaashiga maamul goboleedyada iska casilay Cabdullaahi Sheekh Xasan oo ahaa afhayeenka maamul goboleedyada. sidoo kale ku soo dhawaada fiidiyowga Cabdullaahi. sallallahu ala nabiyina Muhammad. Waxaan ya marka hore koonfur galbeed hanka geesinimada ahna isla markaasna ah gudoomiyihii golaha iskaashiga goboleedyada hanka geesinimada lagu qaatay ayaan ugu hambaleynayaa. sidoo kale waxaan u rajeynayaa madaxweynaha cusub ee kumeelgaarka ahna gudoomiyaha baarlamaanka sidoo kale in Ilaahay u fududeeyo oo u shaqeeyo inta kadib waxaan ogtihiin madaxweyne Shariif Xasan wuxuu ahaa gudoomiyihii golaha iskaashiga xilliga maadaama asagu iska casilay xilkii gudoomiyenimada aniguna waxaan iska casilay saacadda ka bilaabato afhayeennimadii golaha. waa garan kartaan oo markaad xisbi ka tirsan xisbigaagu marka uu xisbi kale la wareego waxaa mas-uuliyadda markasta waxay ku wareegaysaa xisbiga kale marka afhayeenka maadaama gudoomiyihiisa casilay aniguna waxaan iska casilay afhayeennimadii. waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum. kadib iscasilidii madaxweynihii koonfur galbeed mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ahaana gudoomiyihii iskaashiga maamul goboleedyada ayaa shacabka Soomaaliyeed waxa ay isweydiinayaan halka ay ku dambeyn doonaan madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Cali Gaas iyo madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Madoobe. su'aasha taagan waxa ay tahay talow miyay iscasili doonaan iyaguna.